waxaa magaalada muqdisho ka furmay shir muhiim ah oo ku saabsan wadatashiga horumarinta iyo iswaafajinta tirakoobka la xidhiidha socdaalka iyo barakacyaasha gudaha ee Soomaaliya. Shirkan ayaa ujeedkiisu yahay xoojinta iskaashiga, iswaafajinta iyo qorsheynta xogta ku saabsan socdaalka iyo barakaca, iyadoo la mideynayo dadaalada hay'adaha kala duwan ee ka shaqeeya arrimahan. Waxaana wadatashigan la filayaa inuu sare u qaado tayada iyo isku halaynta xogta, taasoo muhiim u ah go'aan qaadashada iyo dejinta siyaasadaha barakacyaasha. Kulankan ayaa waxaa soo qaban qaabiyey Hay'adda Istaraatiijiyadda Qaranka Soomaaliyeed iyadoo kaashanaysa urur goboleedka IGAD, waxaana ka qayb galay xubno ka socday hay'adaha dowladda, Hay'adda Barakacyaasha Qaranka, Hay'adda Socdaalka Muhaajiriinta Adduunka IOM, iyo mas'uuliyiin kale. Shirkan oo socon doona muddo 3 maalmood ayaa waxaa ka hadlay agaasimaha tirakoobka dadweynaha iyo bulshada ee Hay'adda Istaraatiijiyadda Qaranka, Siciid Cabdullaahi Cali, kaas oo sharaxay muhiimadda ay leedahay helitaanka xog sugan oo midaysan si loo fahmo xaaladaha socdaalka iyo barakaca dalka. runtii joogitaankeena halkani waa arrin muhiim ah. runtii 3 cisho ee soo socota waxa laga rabaa oo maanta ay ka tahay inaynu la nimaadno diyaarinta barnaamijka saddexaad warbixinta saddexaad istaatistikada socdaalka iyo barakacyaasha, iyo sidoo kale inaynu faaqidno oo isla eegno dhibaatooyinkii aynu kusoo bandhignay warbixintii labaad ee dhawaan aynu si wadajir u saarnay. runtii warbixinta labaad ee socdaalka iyo xogta socdaalka iyo barakacyaasha runtii idinka la'aantiin lama soo saareen, manay qabsoonteen. waxay ahayd mid muujinaysa wadajir iyo sidoo kale in marka la isku tago in wax la qaban karo. runtii runtii waxaan doonayaa in mahad celiyo wasaarad iyo hay'ad kasta iyo wax kasta oo runtii xog na siisay si loo sameeyo loo saaro warbixintaas oo runtii muhiim ahayd. sidoo kale waxaa door laxaad ka qaatay warbixinta soo saarideeda IOM oo runtii xagga farsamada naga taageertay, iyo sidoo kale IGAD oo tiimka halkan jooga qayb badan oo ka mid ah mararka qaadku xataa u qaaday meelo ka baxsan Soomaaliya si markaas aqoontooda loo soo dhiso. Dhankiisa wakiilka xafiiska IGAD ee Soomaaliya Maxamuud Cabdi Kaarshe ayaa carabka ku adkeeyey baahida loo qabo iskaashi joogto ah iyo iswaafajin si loo helo xog sax ah oo wax ku ool u noqota qorsheynta horumarineed ee dhinaca barakacyaasha. Actually si khaas ah wuxuu meetingkan uga hadli doonaa Somali's migration and displacement dynamics. Isbedbeddela markasta dhaco arrimaha barakaca iyo isku socodka dadka Soomaaliya oo kaliya bismaha gobolka oo dhanna uu ka dhacaa. waxaa ogtihiin korarka maalin kasta ku imaado dadka barakaca Soomaaliya dhexdeeda oo waqtiga ka dambeysaba sii kordho iyadoo la fiirinayo abaaraha ama colaadaha ama isbeddelka cimilada mar walba dhacba. sidaas darteed figuriska mar walba la arko wuxuu noqdaa inuu kordho, soo yaraada aad ay u yartahay in la arko waqtiyadii ugu dambeysay. sidaas darteed maadaama sababahaas oo dhan ay keenaan oo ay ku jirto humanitarian crisis ama arrimaha bini'aadanimada, abaaraha hadda socdo kale dhacay, roobabka soo dahay awgood, ama pressure dhanka dhaqaale ah, dadkii in dhaqaalahoodii ay maaragtay hoos u dhacaan, waxaas oo dhan waxaa laga maarmaan ah in aan iska warsanno oo iswareysto kulamadan oo kale la isugu yimaado technical working group in loo qabanqaabiyo kulankan, sababtoo ayaga waxaa dadka base-ka oo markasta diyaariyo waxyaabaha dadka decision makerska ay tagaan. waa aragteen oo maleena wasiirada kulan wasiiraha hadduu dhacayo ama waxyaabahaas oo dhan waxaa ka horeeya technical groups inay wax diyaariyaan ay horgeeyaan ayaga. marka kulankan aad uu muhiim u yahay, wax badanna waa laga filan karaa inaan fikirkiina la helo. kulankan keliya muhiim u ah Soomaaliya oo keliya, sidoo kale gobolkan IGAD ee Soomaaliya ka tirsantaana muhiim u yahay, sababtoo ah waxaa la rabaa markasta in member stateska IGAD waxay ka shaqeysaa inay isla jaan qaadaan